waxay ku saabsan tahay shirkayga jarayda galabtu ururada aynu qaybta ka nahay caalamiga ama goboleed iyo baaqyadii ka soo baxay isdaba joog ah inaan halkan kaga jawaabno gaar ahaan kii ugu dambeeyay ee ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika kii ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay iyo saaxiibadii waxaan xoogga saaraynaa kii Afrika dawladda federaalka Soomaaliya khamiistii 22 bishan waxay shacabka Soomaaliyeed la wadaagtay dareen ay ka qabtay natiijada shirkii golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee ka socday xarunta midowga Afrika shirka waxa shir gudoominayay dawladda Djibouti sidaan hore idinku sheegayna go'aamadii shirka ka soo baxay waxa ku jiray qaar ka hor imanaya madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobada badan marka laga tago saddex qodob baan isdul taagi doonaa shirkan qodobka koowaad waa soo dhaweynaynaa oo qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ah ee Afrika ee nagala shaqayn doona arrimaha doorashooyinka sida alla wada socotaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka codsaday madaxweynaha midowga Afrika ahna madaxweynaha jamhuuriyadda Congo Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi inuu African Union ku ay u soo diraan ergey gaar ah oo kala shaqeeya hirgelinta xeerkii jahaynta doorashooyinka ee baarlamaanku soo saaray 12 Abriil ee shacabka Soomaaliyeed siinayay codka iyo matalaadda buuxda ee dimuqraadiga waan soo dhaweynaynaa in golaha nabadda iyo ammaanku ay ayideen soo jeedinta madaxweynaheena laakiin waxaan dareen ka qabnaa laba qodob kale qodobka aan ka qabnaa waxa weeye waanu dareen ka muujinaynaa iyo su'aal golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee loo yaqaano PSC Peace and Security Council wuxuu cambaareeyay go'aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ee 12 Abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo cod ah iyo matalaad shacab oo dhameystiran ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go'aan baarlamaan dal madax bannaan arrintaas waxaan u sheegaynaa inaanay ahayn sharci iyo dhaqan dawladnimo dawladda federaalka Soomaaliyana ma soo dhaweynayso cambaaraynta qodobka kale ee isagana aanu dareen ka qabna aan rabno inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno waxa weeye arrinka ku saabsan ciidamada qalabka sida qodobkaasi waxaan u aragnaa mid niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed inkastoo qalbigoodu yahay qalbi xadiida oo aan marnaba ka tanaasuleynin difaaca dalkooda haddana qodobka ka soo baxay Peace and Security Council-ka Afrika wuxuu muuqdaa qodob niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliya shirka waxa ka soo baxay in loo soo jeediyay ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalkeena AMISOM inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya ciidamada AMISOM inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya waa arrin runtii la yaab leh arrinkaasi koo waa sharci darro mar labaadkana wuxuu si cad uga hor imanayaa mandate-ka ama waajibaadka shaqo ee AMISOM oo ku cad qaraarka golaha ammaanka Security Council-ka United Nations-ka ee tirsigiisu yahay 2568 ee soo baxay 12 March 2021 Security Council-ka ama golaha ammaanka qaramada midoobay waa hay'adda ugu sarreysa ee sharciyada dunida soo markaa kan Afrika wuxuu ka hor imanayaa kii weynaa ee Security Council-ka oo aanu ayidsanahay wuxuu kaloo ka hor imanayaa qorshaha Soomaaliya ee mas'uuliyad kala wareegidda ciidamada AMISOM sida la wada socoteen ciidamada Soomaaliya labadii usbuuc ee soo dhaafay waxa ku arkaysay inay mas'uuliyaddii kala wareegayaan AMISOM Somali Transitional Plan STCP oo soo baxay Febraayo 2021 duniduna og tahay dalkuna og yahay ra'iisul wasaaruhuna saxaxay ayay qorshahaasna ka hor imanayaan
mar saddexaadka waxa ay gaf ku tahay sharafta qabka iyo haybadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed askariga Soomaaliyeedna maaha askari waxa loo sheegi karo xitaa arrinkaas golaha nabadda iyo ammaanka ee Afrika uu soo jeediyay wuxuu taageero iyo hiil u noqonayaa culayskana ka qaadi karaa ururada argagixisada ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed habeen iyo maalin dagaalka kula jira yaa ka dambeeyay warqoraalkan waxa dadaal badan ku bixiyay labadii wadan ee aanu sii sheegnay Khamiistii waa Kenya iyo Djibouti Kenya lama yaabanin oo waa hore ayaanu culaaqaad kala qaadanay ninbaa waxa la yiri ninkii hebel baa ku caynayay wuxuu muxuu yaayaa col baabanu nahay ina coltiin haduu ka caayo isla Kenya lama yaabanin waxaanu isku haynana shacabka Soomaaliyeed oo og yihiin oo wakiiska badda oo ay leeyihiin ka tanaasula badiina annaguna aan leenahay ka tanaasulimayno oo u dhimanaynaa dhulka yaga mana yahay runtii qaanuuniyan ama sharciyan ama common sense maskax ahaanba dal aanu sidaa isu haynaa oo aanu maxkamad isula jirnaa inuu tafatire ka noqdo faaqidaadda arrimaha yaga dal aanu sidaa isu haynaa oo xidhiirkii kala goosannay oo aanu maxkamad isula jirnaa inuu tafatire ka noqdo istaadmanada arrimaha Soomaaliya lagaga hadlayo waa nasiib darro runtii marka lama yaabanin iyaga wadafa laakiin waxa la yaab kale waxa weeye dawladda Djibouti oo wali ku taagan jidkii aan uga dignay 4 bilood ka hor kursigan maanta doonayaan shacabka Soomaaliyeed u sheego kursigan maanta guddoonka golaha nabadda iyo ammaanka ee Afrika ay ku fadhido Djibouti xubinimada iyo guddoonka waxa lahaa Soomaaliya laakiin waanu u daynay waxaanu dhimay walaalaheen ha fariisteen Djibouti waanu u daynay taasaan rabnaa loo wadaagno Soomaaliya xaq u lahayd way soo martay Djibouti Soomaaliyana wali ma qabo kursiga haddana kalsooni iyo walaalnimo aanu dhimay idinku sii wata markay taasi dhacdo markaa maxay ku xasuusinaysaa aniga waxay xasuustay shakhsiyan gabaygii dhowdaan ee garnaqsiga 1974 geedku koraaya baan ninkan barigan talayay ilaa antay goynayaan gacalkay muday gacantii maroodiga ninkan galab ka sii daayay isna gows libaax igu ridaan gacalkay muday ninkan buurta guradeeda dheer anigu gaarsiiyey ee gunteeda igu celinayaan gacalkay muday halka uu dhaafimaayo shacabka Soomaaliyeed baan u daynayaa sababta iyo jawaabta iyo su'aasha why maynaan ka yeeleen dawlad Soomaaliyeed in kursi ay fadhido lagu dhibaateeyo walaalaheen Djibouti never ugu dambayn waxaan wadamada Afrika ugu baaqaynaa inay ka wada shaqeeyaan nabadda ammaanka iyo iskaashiga qaaradooda mushkiladoodana ay ku xaliyaan xeerarkooda iyo axdiyada wadagsan waxaanu si cad u sheegaynaa Soomaaliya inaanay kalsooni ku qabi doonin shirar lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay gudoominayaan ama ka talinayaan wadamada aanan heshiiska ahayn taas oo uu ogolaanayo qodobka 11 ee protokolka golaha nabadda iyo ammaanka waa kan laftiisa oo si cad u sheegaya inaan meel looga soo wada jeesto go'aanna laga qaato wixii waxyeelaya madax bannaanida dal Afrika markay sovereignty-ga madax bannaanida iyo qarannimada tagto axdiga ku qoran protokolkiisa gaarka ah ee ku sii qoran golaha ka tirsan midowga Afrika ee ammaanka iyo nabaddu wuxuu sheegay in meel looga soo wada jeesto si loo ilaaliyo madax bannaanida dalka in baarlamaanka lagu xadgudbo ciidanka lagu xadgudbo qarannimada lagu xadgudbo yeelimo laakiin waxaan soo dhaweynaynaa go'aamadii ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay in lagu taageeriyo dawladnimada Soomaaliya waxaan ayideynaa wadamada aan saaxiibka nahay oo ugu horeeya dalka Mareykanku
هو بلا قرب تاجن دلك الصومالية وحنو قرب تاجن هاي قف كسته وأبال نو قلي وقرب تاجن هاي وأنا نوجناي قف كسته وقف نجا قلينا ووجناي شعب الصومالية نوحن الله لينا إن أوجادان مرحلة دلكم مريو يعني حكومة ضد ذا لو جرتو سيدي الله هن لها مرحبنا ندا يقرن ماذا جمهورية دا فدرالك صومال. ساعات وصل ما سنت أيوة صوت السنة أو عاد شركة إنها تسود ويرسل الحين وأنا ذا كلها أمان يقسم من الدولة وأنا ذا سواها قيب كأهائن ولا هذا الذي يدور شو يكتب وصل كلامه أو الذي يقول لا تاس معناه هذا ما الولد واحد كنت نازل يسام. النهارده waxa walba waxa ka sareeya waxna waa soo jeedin waxna waa sharci waxa yaala sharci baarlamaan 12 Febraayo heerka jihaynta doorashooyinka la yiraahdo wax ka sareeya oo la taaban karaana ma jiraan xukuumaduna waxay u hoggaansan tahay fulinta go'aamada sharciga ee ka soo baxa baarlamaanka laakiin saaxiibtinimada waa meesheeda iyo tala wadaaga iyo ismaqalka Soomaaliyana mar walba iyo dawladdu waxay diyaar u tahay saaxiibada iyo saaxiibadena caalamkeena la shaqeyno si dhowna ula shaqeyno marka shaqad leysaan go'aanka golaha shacabka oo kale ogtihiin in dalku laba hay'adood baarlamaan ama soo kala jeedaan golaha shacabka baarlamaanka ila dadku cadayso go'aanada ay taageeraan caalamka oo dhan oo UN-ka Mareykanka midowga Yurub iyo midowga Afrika saxiga ka aadaysan maadaama dunida dhan ay hadda si gaar ah ugu xiran runtii dalaadiro waxa fiican inaad malahay dastuurka akhrido dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labada gole way kala cad yihiin awoodoodu golaha shacabku wuxuu metelaa shacabka Soomaaliyeed soo doortay waa xeer dejinta xaq u leeyahay xeerarka dalka u dejiyaan waxaan ixtiraameynaa aqalka sare oo ah hubinta iyo check and balance-ga sida garsoorka baynu ixtiraamayno garsoorkuna halkan uu fadhiya oo lama oranin garsoorkaba u taga lama oranin xukuumadda u taga oo ra'iisul wasaarihi iyo madaxweynuhu taga dalkeenu wuxuu leeyahay system isu dheelitiran dhammaan xeerarka waxay nooga mas'uula golaha shacabka waanaynu kula shaqeynayna waana ku khasbannahay go'aamada ay noo soo saaraan